madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta safar shaqo ugu baxay magaalada New York isagii wafdi hogaaminayo isagoo ka qayb gali doona kulanka golaha guud ee qaramada midoobay sanadlaha ah oo ka furmi doona labada maalmood soo socota haddii la yiraahdo New York. madaxweynaha intuu joogo New York wuxuu la kulmi doonaa wafuud badan oo caalamka ka socota oo xiriiro naga dhaxeeya laba geesooda iyo xiriiro kale oo guud. wuxuu kaloo madaxweynaha ka jeedin doonaa khudbadda rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya oo shirka intuu socdo. fursadaasna madaxweynaha wuxuu uga faa'iideysan doonaa inuu la kulmo dowladda Mareykanka qaybo ka mid ah maadaama dowladda Soomaaliya hadda ay ka soo kabanayso burburkii faraha badnaa oo haykalka dowladnimada u soo noqonayay saaxada caalamka. madaxweynaha wuxuu rabaa inuu uga faa'iideysto fursaddan in uu tuso caalamka in Soomaaliya ay lugaheeda ku istaagtay, in Soomaaliya horkac weyn ay sameynayso, in Soomaaliya ay hadda ku tallaabsatay horumar ballaaran oo xagga dhaqaalaha, siyaasadda iyo amnigaba ah, iyo qorshaha Soomaaliya u degan sanadaha soo socda haddii la yiraahdo sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka, dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo ogtihiin sharciga shalay inuu saxiixay madaxweynaha.